cid walbaaba ama qof walbaaba wuxuu hadalhayaa cloud maalmahan dambe. waxaad arkaysaa ama dadku intooda ugu badan ma fahansana sababta waxa isbedelay iyo waxay dadku intooda ugu badan ay ChatGPT iyo Gemini ay subscription-kii ay lahaayeen ay uga guurayaan oo ay usoo guurayaan cloud. maxaa hadalhaynta intaa la dhaliyay? cloud waqti xaadirka dambe ma ahan kaliya sidii chatbot uma shaqeeyo inuu su'aalo ka jawaabo, uu fikrado curiyo, uu waxyaabaha sameeyo kaliya uma jawaabe. shaqooyin intaa ka badan ayaa lagu soo daray. waxaan isla eegi doonaa waxyaabo faahfaahsan iyo cloud waxyaabaha uga duwan yahay OpenAI iyo weliba Google-ka AI-skooda. videogan waxa aan si fudud oo qoto dheer u fahansiin doonaa qof walba oo aan fahansanayn. sidoo kalena waxaynu ka hadli doonaa muxuu yahay cloud, waxyaabahan cusub ee lagu soo daray sida Claude Cowork iyo Claude Code waxay yihiin. aynu ku bilowno Claude AI-gaasi waa chatbot oo kale, waa sida ChatGPT adoo isticmaalaya ama Gemini adoo isticmaalaya. Claude muxuu sameeyaa markaa? su'aalo ayaad weydiinaysaa, jawaabo ayuu ku siinayaa, fikrado ayuu ku siinayaa, sidoo kalena problems ayuu xalinayaa. tusaale ahaan ganacsi cusub oo wadanka ka shaqeyn kara ii sheeg hadaad tiraahdo fikrado cusub ayuu ku siinaya. haddaad tiraahdo reportkana igu taagan ama waxana igu taagan iyo xali problemka uu solve garaynaya. marka Claude wuxuu ku fiican yahay markay noqoto understanding-ka iyo long information-ka. qaybtaas Claude markaa qaybta chatbotkiisa ama chatbotkiisa wuxuu kala mid yahay sida ChatGPT oo kale oo su'aalo aad weydiin karto, jawaabo ku siinaya, waxna xalinaya, iyo sida kale Gemini. haddaba meesha ay wax iska bedeleen ayaynu ka hadli doonaa iyo waxay dadku intooda ugu badan ay ugu soo guureen. Anthropic waxay ku soo dareen Claude Cowork wax loo yaqaano. haddaba aynu ka hadalno Claude Cowork muxuu yahay. waana meesha ay wax iska bedeleen. Claude Cowork kaliya ma aha chatbot sida ChatGPT oo kale su'aal weydiinaysa kan isaga shaqadii qabanaya. maxay ku kala duwan yihiin marka? waxay ku kala duwan yihiin hadda ChatGPT ama Claude qaybta chatbotska ay weydiiso tiraahdo fileskan sida loo xaliyaa, wuxuu ka oranayaa computerkaaga gal, qaabka u samee. laakiin Claude Cowork waa shaqaale yar oo adiga kuu shaqaynaya. hawl ayaad u dhiibaysaa, hawshii ayaga gacantooda ku qabanaya, adigu wax dhan ma qabanaysid. waxa laga soo gudbay in chatbot uu fikrado kuu sheego, wax kuu sheegay, waxaana loo soo gudbay in ayagu shaqadii qabtaan. tusaale ahaan shaqaad u dhiibaysaa Claude Cowork, waxaad ka soo qaataa inaad adigu tahay managerkii, dadka Claude Coworkna ay yihiin shaqaalahaaga yaraa ee kuu shaqaynayay. waxaad oran kartaa ama tusaalahan oo kale ayaad u dhiibi kartaa. waxaad oran kartaa documentiska computerkayga ku jira fileska isku habee, sidoo kalena report iga diyaari documentigayga. uu samaynayaa Cowork markaa. Claude Cowork uu samaynayaa documentiga ayuu tagayaa, uu akhrinayaa, isagaa habaynaya, isagaana jawaabta reportka ugu dambeysa kuu keenaya. kan kaliya ma ahan in uu chatbot qaab ahaan u dhaqmeeyo actual workii ayuu qabanaya. waana sababta markaa dadku inta badan aad u maqasho videoiska AI agentska. AI agentskuna basically waxa weeye wax shaqadii kuu qabanaya. marka Claude waxay sahashay qaabkii AI agent aad uga baahan lahayd in Claude Cowork uu shaqaalooyinkaas kuu sameeyo. haddaba aynu tagna markaa Claude Code. Claude Code u fikir qaabkii inuu yahay developer oo kale. Claude Code inta badan waxa loogu talagalay in uu codeska sameeyo, errorska isagu ka saaro, oo application-kii test gareeyo. muxuu uga duwan yahay markaa koodhadhka kale ama waxyaabaha kale ee jira? Claude Code wuxuu ku fiican yahay isaga ma oranaysid oo waxaan u baahanahay application-kaas koodhkiisa ii qor. waxaad isaga u dhiibaysaa feature dhan oo dhammaystiran. tusaale ahaan waxaad leedahay waxaan u baahanahay application dadka haga. application-kii Claude Code isagaa samaynaya, qaladaadkii isagaa xalinaya, errorskii isagaa ka saaraya. marka aan leeyahay maxaa uga jeedaa? waxaan uga jeedaa waxay tahay koodhadhka kale markii uu kuu sameeyo application-kii ama wixii errorkii waa inaad adigu intaa screenshot ka qaadaad u dirtaa oo tiraahdaa errorka xali. laakiin Claude Code ka uu ka duwaya isagaa errorskii xaqiiqsanaya isla markiiba, isagaana errorskii ka saaraya. marka Claude Code kaliya waxaad u dhiibaysaa feature ama application dhammaystiran oo leedahay waxaa samee, isagaa samaynaya, isagaa test garaynaya markuu dhammeeyo, isagaa qaladaadkii ka saaraya, isagaa waxaasoo dhan ka saaraya. marka dadkii maxay noqdeen marka maadaama ay arkayaan in qaybta subscription-ka ee Anthropic Claude ay Claude-kii oo chatbotskii fikradaha curinayay, waxyaabahaas curinayay ugu jiro, sidoo kale ugu jiro Claude Cowork shaqaalahaaga yaraaya, hawlahaaga oo dhan kuu sameyn, sidoo kalena ugu jiro Claude Code-kii oo developer ahaan qaabkii developerka u shaqaynaya. marka aynu bal si fudud u sheegno Claude qaybta chatbotskiisa waxaanu ka dhigaynaa maskaxdii ama fikradaha tii curinaysay. Claude Coworkna waxaan ka dhigaynaa shaqaalahaagii. Claude Code-na waxaa ka dhiganaa developer-kaagii application-nada sameynayay, waxyaabaha sameynayay. marka uma baahnid inaad AI kale iyo waxyaabo kale marka aad sii iibsato, kaliya waxaa kugu filan inaad hawlahaaga iyo businesskaaga aad ku qabsato Claude. That's why markaa dadku intooda ugu badan waqti xaadirkan ay Claude ugu soo guuraan, aad aragtid oo Claude aad loo hadalhayo.
saaxiibayaal mashquul kadib waynu soo noqonay fadlan videoga like saara si uu dad badan u gaaro maadaamaan cabaar ka maqnayna si viewskii iyo videoskii ay dib ugu soo noqdaan aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin